gedisan ee kasoo qayb gashay marwe iyo mudane meel kastaba mar kastaba meesha ku fadhida magaca ku fadhida ayaan ku salaamayaa waxaan rabaa insha Allah tacaala bal inaan wax yar ka taabto inkastoo waqtigu aad u yar la sheegayo doorka ay ku leeyihiin dumarka Soomaaliyeed dawlad dhiska horta dawladdu waxa ka horeysa u maleynaya wax loo yaqaano ka hor xilliga dawladda dumarka Soomaaliyeed ma is weydiinay kaalinta ay ka qaateen xornimadii iyo gobonimo u dirirkii wax loo yaqaano inaan taas is weydiino waa muhiim mid labaad markii dawladdii la doortay markii la qaato xornimada waxaan u maleynayaa dumarka Soomaaliyeed waxay ka qaateen door aad u weyn ay ka qaateen burburkii Soomaaliya ama dawladdii dhexe ayadana sidoo kale waxay ka qaateen door mar walba marka waxaan u maleysaa dumarka Soomaaliyeed inaan laga dhawaajin laakiin mar walba taba ragga laga dhawaajiyo laakiin maalmahan iyo xilliyada dhow waxaa batay dumarkii inay hadlaan kuma hadlayna wax dambiya laakiin waxaan ka hadlaynaa haddii laga soo bilaabo xilligii shareecada oo xilligii nabiga uu noolaa calayhi salaatu wasalaam halkii xaj oo rasuulka uu xajiyay oo ah xajatu wadaa markay iskhilaafeen rasuulka iyo waxa loo yaqaano saxaabadii waxay ahayd xaaskiisa qofkii dhahay rasuul Allah waliba markii xiirashada iyo qalida ay isku khilaafeen qofkii dhahay markii lala tashto macnaha waxaan ka wada doorka ay ku leeyihiin dumarka hadday tahay islaam iyo hadday tahay Soomaali in doorkooda la siiyo qofkii dhahay rasuul Allah xiir qalna oo markaas uu rasuulku sameeyay calayhi salaatu wasalaam sidoo kale markii aan ka hadlayna aan u soo noqday ciwaankayga xilligii gumaysiga ka hor sida hore u soo sheegay dumarka Soomaaliyeed waxay ku bixiyeen maal iyo maskax waxay raggoodii la garab taagnaayeen waxa loo yaqaan cadi caanay Soomaalida taqaanaa maleynaya marka xilligaas wixii ka dambeeyay oo gobonimadii la helay waxaan garanaynaa maleynaa aad aan u naqaan xaawataaka mar walba la sheegay oo taala leh soo laakiin waxaa jira dumar kaleeto oo ayagana dhib badan oo harassment la kulmay oo gumaysigii reer Yurub hadday tahay koonfur iyo hadday tahay waqooyi labadaba ay u geysteen dumarka Soomaaliyeed laakiin qofka kaliya oo markaas helay mansabka waxa wataako oo mar walba tab aan sheegay laakiin dumar badan ayaa jiray markii dawladdii dhexe waa ka gudbi kartaa yaa ustaad waxyar markii dawladdii dhexe ay burburtay oo 90kii ay dawladda dhexe burburtay waxa naf iyo maal iyo mawd wax loo yaqaan ku bixiyay dhalinyarada Soomaaliyeed ama hadda qayb kamid ah waa igaral ahaadanayaan adeerada meesha fadhiya waxay ahaayeen dumar ay ahaayeen halka uu odaygii ama reerka aabihii uu qaatay qori ama qaar barabaxeen oo wadamada shisheeye ay nabad ka dooneen waxay aad hooyo Soomaaliyeed qofka dhaxda u xirtay inay dhahdo wiilkeeda ama gabadheeda qalinka qaad ee qoriga dhig hooyo ahayd dabcan waa doorka barka waxaa kaloo soo hartay 2000 waa ka gudbi kartaa ustaadaya 2000 carta markii la iskugu tagaayay aad waxa uu oleynaa dumarka Soomaaliyeed waxa laga yaabaa hadaan dhaho marka xoogaa caqliga waxa laga yaabaa in loo arko dumarka age-ka aad u diidaan la dhahaa marka xilliga aniga aan garaadsanahay mar walba waxa maqli jiray haayado waan la isixi karaa kobwo or kagwo wax saas ah waa la isixi karaa waxa u maleynaa waxa hogaamin jirtay Caasha Xaaji Cilmi iyo dumar kale oo badan aan hogaamin jirtay marka mar walba tab waxaan xasuustaa inay idaacadaha taagnaan jireen BBC-da meelo badan ee mar walba tab ay dhigi jireen dawladnimada Soomaaliya ayay waxay rabaan inay qayb ama buddig ay u noqdaan dumarka Soomaaliyeed markii ku meel gaarka aan ka baxnay waa ka gudbi kartaa xaawataaka waa soo xusay sawirkan mar hore aan ka tagnay waxaa jirta marka wax loo yaqaan ku meel gaarka markaan ka baxnay oo aan xalaha u baxnay wax loo yaqaan federaalka dumar badan aan ka qayb qaatay waxaa kamid ah buddigga dawladda Soomaaliya ama doorka ay ku leeyihiin dumarka Soomaaliyeed dawlad dhiska Soomaaliya waxaa kamid ah ra'iisul wasaare ku-xigeenkii Marwo Fawziya Xaaji Aadan iyo qaar badan oo kale aan soo koobin oo ay kamid tahay dhanka wasiirka waxbarashada ma ahayd maama Maryam Qaasim dad badan marka dumar badan waxaa jira focal point u ah buddigga dawlad dhiska Soomaaliyeed ayaa jira waxaa soo hartay marka hadda waqti xaadirka aan joogno markaan si guud u fiirino xilligan dawladda helnay xilligan gobonimada helnay xilligan dawladda helnay xilliga burburka uu yimaaday iyo burburkii oo ah 10 sano iyo 30 sano dawladda haysan sano waa 40 sano markii aan research-ka aan sameynayay waxaa ku cad waxa loo yaqaan 68 sano ka hor inay dumarka Soomaaliyeed
ama xataa markaan si u fiirno 1989kii haddii la fiirsho xamlana waa 68 sano marka intaas ayay dumarka Soomaaliyeed waxay u ahaayeen buddig waxaa soo haray marka meelaha ay dumarka afar qayb ayay dumarka mar walbeetaba ay xoog saarayeen ka qayb qaadashada siyaasadda waxbarashadii iyo sidoo kale waxa loo yaqaan hal abuurka ganacsiga ayay xoog saarayeen mar walbeetaba tusaale ahaan markii aan ka soo hadalnay waxa loo yaqaan political party waa ka soo hadalnay waa inay caasho xaaji cilmi iyo maama fawziye dadkaas inay ka soo qayb qaateen waxaan ka hadlaynaa marka waxbarashada dhalinyaro badan oo meesha fadhiya hadda haleeyara safka ugu hore waxaa u malaynaa rag odayaala fadhiya laakiin dhalinyarada dambe ma u malaynaya inay halkan soo gaari lahaayeen hooyo haddaysa dhihi lahayn ama aysa waxa loo yaqaano businesska markaan ka hadlayno hooyo waxay gadaysay ceebna ma ahan shaqada waxay gadaysay caano waxay ku korinaysay ama wax ku baraysay wiilkeedii gabadheeda soo ayada ay saas tahay marka qaybta waxbarashada waxbay ka qaadato hooyadii midda labaad oo ah heerka ay ka gaareen oo hal abuurka ama ganacsiga entrepreneurshipka ama innovationka waxa loo yaqaano ayaa waxay tahay tusaale ahaan marka aan ka soo hadlayno East Africa ama wadamada East Africa la dhahayo gabar Soomaaliyeed ayaa waxay hogaaminaysaa businesska marka laga hadlayo waa maamul dhahay maama xirsiyo mooge sorry aamine xirsi mooge something like that marka waxaa kaloo jirta markii laga hadlayo way badan yihiin marka laakiin halaalan ka soo qaadanaynaa waxaa kaloo jirta markii laga hadlayo waa almar xaaji challenges marka ay dumarka Soomaaliyeed la kulmaan ama caqabadaha ay dumarka Soomaaliyeed la kulmaan mar walbeetaba sida aan ka soo sheegay European-ka markay imaanaya wadanka oo wadamo gobolada waqooyi iyo gobolada koonfureed mar walbeetaba dumarka Soomaaliyeed xilligaas horta waxay soo bilaabatay caqabadaha ay la kulmayaan ayadoo caqabadaha ko mid shakhsiyan way la tahay mid administration way la kulmayaan mar walbeetaba waxyaabaha kow ka ah ayaa waxay tahay horta kow tala lagama siiyo hadda waxaan ka soo hadalnay rasuulka calaysalaatu wasalaam xaaskiisa inay uu la tashtay ka bacdina uu ayadii dhahday rasuul Allah waa lagu dayanayaa bal horta dhuu id ficilka samee inay dhahday ma la siiyo marka horta taas waa midda koobaad waxaan u maleynayaa dumarka xoogaa oo iska qayqayliyaan si oo aan macquul ahayn waxay dhahaan 30% anaga maqanay dhahaan laakiin si diini kaliya hadda u raadsano waxay ila tahay qof diidaysa inay si jirnaa u maleynayaa midda labaad oo ah ayadana dumarka caqabadaha ay la kulmayaan genderka hadda waxaa laga dhawaajinayay dib u dhiska Soomaaliya markii laga hadlayo 4.5 iyo qabaa'ilada laga dhawaajinayo laakiin aniga 4.5 waxaan u arkaa meel ama administration inuu ka shaqeeyo afar wiil iyo hal gabar aniga taas ayaan waxaan u arkaa 4.5 qofba meel uu ka arkaa 4.5 ka soo qof qabiil uu ka fiiriya laakiin aniga waxaan ka arkaa afar wiil inay hal xafiis ka shaqeeyaan 0.5 waa gabar marka soo marka halkii gabdhaha laga dhiirigelin lahaa Soomaalidu waxay dhahdaa gabar wax baratay waa bulsho wax baratay dhaha haddana waxaan ku soo celcelinaa u maleynayaa gabadha iyo wiilka qofka aaminka badan soo ayadu ay saas tahay marka caqabadaha ay la kulmayaan ko waa genderka laba hadda maanta aniga hadda waxaan ka dhawaajinay tola laga dhawaajiyay hadda maanta dhowr tolka xildhibaan aan raadsana xalilay mawaalada qofta aaway nimankii maxaa ku dhacay leeyahay tolkii ayagana waxay muujinayaan 0.5 inaan ahay almost laakiin wiilka ila dhashay hadduu dhaho maanta waxaan rabaa inaan xildhibaan iyo campaign inaan galo waxa laga yaabaa even xataa haddaan si kale u helo baabuurka la isku ilaaliyo xataa la iimagada ay halka wiilasha loo gado oo tolka u gado marka mar walbeetaba waa dulmana ma dhahaayo laakiin waxaa u malaysaa si ay dumarka ay samutay in loo sameeyo midda labaad oo ah limitationka security-ga marka aniga maanta haddaan ordo dhaca kufo 10 wiil ma helaayo oo ilaaliso waataan ka soo hadlaayo laakiin wiilka walaalkay ah ama adeerkay waxa laga yaabaa ama tolkay ah inuu helo dhowr iyo 10 iyo bullet proof wax lamid inuu helo midda labaad economy-ga lacagtii laygu baawur laygu gadlaa ma la isiinayo lacagta ku campaign gareyn lahaa ma la isiinayo lacagta xataa waxa laga yaabaa waxbarasho maanta wiil iyo gabar markii la dhaho waxaan u maleynayaa waxa loo dhaga fudud yahay yaa loo dhaga fudud yahay asxaabe wiilashaan filayaa laana waxa lagu leeyahay gabar waxbarashadeeda jika u dambeysay maxay ka orday ya waa kelmadda mar walba ay taba dhagahayna ka dhawaaqdo laakiin sidaas ma ahan ayaan filayaa dumarkeennana qayb ayaan ka nahay inay arrintaas u dhacdo
social culture marka social culture waa dhibka ugu badan ee haysata dumarka Soomaaliyeed dhibka muxuu ku haystaa tusaale ahaan yani hadda tusaale u soo qaadanaya qof aan baahan ma jira qof insaan aan baahan ma jira hadda waxaan ka soo noqonaa umaleynaa qadasoma ragga miisaska isku balaarinayaan macnaha ya qof aan baahan ma jira soo ragga maxay sameynayaan maba u maleeyaan gabdhaha inay balaarinayaan waxaan maleynaa waa la soo socdaa sorry marka miisaskii isku balaarinayaan marka aragno maxaa laga rabaa walaal iga leexo waa gaajaysana inaan dhaho maba dhahay waa laabanaya macnaha qaybka aan ka nahay dumarka haddaan ahaan ka hadlaya ayadoo ay saas tahay institutionada marka yacni waxaa lagu leeyahay raalli ahaadaya waxaa jirta tusaale ahaan institution maanta haddaan shaqo ka dawanto oo kaleeto waxyaabo waxaa jiro oo dhaqamiyan Soomaalinimo iyo Islaamiyan xoogaa ay u fiicnaan in afka ku dhufto oo harassment ee dumarka kala kulmaan oo lagu abuse gareeyo ama lagu yani si togan loola dhaqmo kaleeto ayaa jira waxyaabaha badan ayadana iyo waxyaabo badan oo kale jirto iyo in la dhaho dumarka maxay qabanaysaa maxay taqaanaa wax la mid ah dhibka ugu badanna bulshada ma saaraya annaka is saarayna ka socodsaad waxyaabahan si guud ah hadda uga soo hadla ka socod adarale okay waxyaabaha ay dumarka maxay ka gaareen waxa loo yaqaan guule maxay ka gaareen dumarka Soomaaliyeed markii intii lagu guda jiray dawlad dhiska Soomaaliya waxay ka gaareen mar walba taba hooyooyinka qaar marka la sheekaysto waa jeclaan lahaa waxa laga dhawaajinayay ama aan ku arkay maama inay imaato xaliimiyada ayada maanta si fiican u hadlaheeda umaleynaa inay dahabkooda u furaayeen ee u gadaayeen si loo helo dawlad Soomaaliyeed si loo garab istaago ragga Soomaaliyeed by the way hadii aabuhu uu maqan yahay ama uu barabaxay ama uu dhintayba aan ka soo qaadan hooyada hadday sadexda u xiran lahayn intana meesha ma fadhinayn ma ana fadhin lahayn laana hooyada waa qofka hal abuurkeedii ama awoodeedii si toganba ugu gelisay dhalinyaradii ka socodsaada wax yar okay dadka tusaalaha aan soo qaadanayo waxaa kamid ah gabadhan la leeyahay oo business woman ka Xalimo Aadan waa qof hal abuur fiican ka gaartay meel waxaan maleynaa dumarka isma buunbuunino idaacadaha ma istaagno ma hadalno haddaan hadalnana xoogaa waxaa la leeyahay war midaan reer galbeedka wax u soo sheegay ayaa la leeyahay gabadha kaleeto sidoo kale siyaasadda markaan ka hadlayno kaleeto inkastoo aysan waddankeena laakiin si dadban ay ula talisaa waxaa laga yaabaa inay imaato dhowr mar ay imaatay ee madaxda la talisaa ay shirarka caalamiga ka qayb qaadataa madaxweynayaasha ay soo dhawaysaa ilaa Cumar halka ay ka gaartay waxa loo yaqaano guulaha ay ka gaartay dib u dhiska dawladda Soomaaliya ayay ahayd waxaan ka hadlaynay gabadhan oo Ilwaad Elman waa wada naqaanaa umaleynaa si fiican ayay waxay uga qayb qaadan jirtay dawladeenta ama dib u dhiska dawladda Soomaaliya ama ayadoo shaqada ku jirto ayay dhimatay hadaan qaldeeyay waa la sixi karaa almaas marka dumarka Soomaaliyeed door weyn ayay ka leeyihiin laakiin waxaan bogaadinayaa in la siiyo fursadii ay ku uga qayb qaadan lahaayeen hadaatan waxa la bal dumarka hal tijaabiya la ma dhahayo ra'iisul wasaaraha la siiyo madaxweynaha la siiyo ma dhahayo laakiin meelaha ay mansabka ku yihiin meelaha waxa jira dumarka ay ku yihiin mansab ay ku yihiin ayaa jira waxbarashada haday tahay shirkadaha ama hay'adaha oo yaani hoose oo madaxweyne ahayn wax la mid ah in fursad loo siiyo ustaaday research ka inta sameeynay waxyaabaha aan ku ogaanay ama data analysis inta sameeynay horta research ka wali uu socdaa ma ahan mid dhameystiran ma insha Allah taala waa dhameystiri doonaa haduu Ilaahay waan la wadaagi doonaa groupka ama maamulka shirkadda dad waa la wadaagi doonaa insha Allah taala research ka marka waxyaabaha aan ku ogaanay waxay tahay problemyada ama caqabadaha hadda ka soo sheegay oo dumarka koow ay yihiin waxa loo yaqaano basic gender violence wax loo yaqaano health care inay ayaduna sidoo kale ay problem kala kulmaan education ki inay ayaduna caqabada ay dumarka Soomaaliyeed la kulmaan ustaad saca okay sawiradan marka suggestion ka aan soo jeedinayna marka koow horta dumarku waxay u baahan yihiin qof kasta oo Soomaaliya wuxuu xaq u leeyahay qof kasta oo Soomaaliya wuxuu xaq u leeyahay ayay qofka dumarka u baahan tahay sidoo kale
laf dhabarka bulshada inay qayb ka mid tahay ayaa ayadana halkaas aan ku ogaanay qaybtaas waa qaybtii empowermentiga macnaha dumarka in awoodda qayb laga siiyo qoondada dumarka la sheegaa sama qoonda dumar oo qurxoon in la siiyo waa muhiim ayaduna ay ka soo dhalaalaan dumarka yacni qof iska kaasiinaysa ma jirto haddaada la imaanin output fiican haddaada la imaanin oh sorry okay sorry ustaad hal mar ku celi conclusion iyo recommendation ka markaan isku qabana 1-2 minutes waxaan soo jeedin lahaa haddii la yiraahdo dumarka Soomaaliyeed in la siiyo fursad buuxda xataa loo sameeyo tababaro badan loo sameeyo si ay uga mid noqdaan yani wax qabadka dawladda Soomaaliyeed ama laf dhabarka dawladda Soomaaliyeed ama dib u dhiska dawladda Soomaaliyeed sidoo kale lagu aamino fursadaha la siinayo lagana daayo wax loo yaqaano basic gender violence in laga daayo ama waxyaabaha harassment-ga suguud marka waxa loo yiraahdo laga daayo aad u mahadsantiin ustaad